bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada janalka maalmaha. waxaan idinla wadaagaynaa qiso aad u xanuun badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay dhibaatada ay leedahay in la habaaro carruurta. haweeney ayaa maalin maalmaha ka mid a cunug ee dhashay ayaa wuxuu ka jebiyey alaab ay aad u jecleed oo hooyadeed hadiye ahaan u siisay. markii aragtay alaabtii oo jajabtay ayay wiilkeedii waxay ku tiri, sidii aad iga jebisay alle derbi ha kugu soo dumiyo, korkaagana ha jajabiyo. muddo kadib hooyadii waa ay halmaamtay habaarkii ay habaartay wiilkeeda, mana aysan ogaanin in Allah uu habaarkeedii aqbalay. wiilkii waa uu weynaaday, wuxuuna noqday wiilasheeda midka ugu baarisan ayna ugu jeceshahay, waxayna ahayd in mar waliba ay ka naxayso wax waliba oo wiilkeeda soo gaaro dhib ah. wiilkii wuxuu noqday wiil ku wanaagsan waxbarashada, jaamacad ayuu ka baxay, wuxuuna bilaabay shaqo. kadib wiilkii waa uu guursaday. wiilkani markii uu galay nolol aad u fiican ayaa Rabbi wuxuu qadaray inuu waafaqo habaarkii hooyadii ay habaartay. maalin maalmaha ka mid a ayaa wiilka aabihii wuxuu ku yidhi, waxaan rabaa inaad ii raacdo guri dabaq oo aan lahaa. wuxuuna ku yidhi, waxaan rabaa inaan gurigan dumiyo islamarkaana dib u dhiso. wiilkii wuxuu raacay aabihii, waxayna wada tageen gurigii. kadib waxaa loo yidhi shaqaalo dumi guriga. ayadoo shaqadii lagu jiro ayaa wiilkii wuxuu gudaha u galay guriga. isagoo oo gudaha ku jiro ayaa dhismihii halmar soo wada dumay. wiilkii aad ayuu u qayliyey. kadib shaqaalihii waxay isku dayeen inay soo badbaadiyaan, balse markii ay soo saareen wuxuu noqday wiilkii jirkiisa mid wada jajaban. kadib waxaa loo qaaday cisbitaalka. hooyadii markii aragtay wiilkeeda xaaladiisa aad ayay u naxday, waxayna soo xasuusatay maalinkii ay habaaraysay. waxay tiri, shalaytadeyda maxaan u habaaray wiilkayga maalinka. hooyadii waa ay mir daboolmatay. muddo saacada kadib ayay soo naxday, waxayna aragtay wiilkeedii oo nafta ka baxday. waxay tiri, haddii uu wiilkayga ii soo laaban lahaa oo wax waliba iga jajabin lahaa oo aan asiga aan weylahayn ayaa ii wanaagsanaan lahayd. qisadani waxaynu ka faa'iideynaa dhibaatada ay leedahay carruurta in la habaaro. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay, ha habaarina naftiina, owlaadiina iyo maalkiina. waxaa dhici karto inaad waafaqdaan saacaduu alla ducadiina ajiibayo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka maalmaha, fadlan sabskaraab dheh gambaleelkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.